Soomaali waa laga yaabaa in maruun Ilaahay isku soo celiyo waan israacnaa annagu halkan baan nahay calankeenu hadduu caarcaar leeyahay iyo hadduu bulu halkan u baa Ilaahay aan nahay arrinka Djibouti aad kaga sheekaynayso anaguma matashan madaxweynaha waxaan leeyahay haraatida ka dah ayaanu misla Soomaaliland haraatida يعني ده أنت هراتد ونا بحيالي أنتي وحي بحيا شيء ما ريتي شيء بريء وتقل البيت هنا يعني بحيالي إن علامات الله يسرسلوا Soomaaliland بان هلا لا دخلنا الله لاقى أنا ما يسوق Soomaaliya maalintii ciidamada Itoobiya soo galeen bay al-shabaab ku bilaabaan dhalinyarta Soomaaliland bilaa shaqadii hadaad keenta ciidamo Itoobiyana al-shabaab Soomaaliland bay al-shabaab qabsan baan taana ku leen Soomaaliland ha u horkicin inay sida xamar noqoto salaadinta iyo madax dhaqameedka kala duwan ee gobolka Awdal oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Boorama waxa ay meel adag iska taageen in xuduudaha iyo xayndaabka gobolka Gabiley waxay baaq iyo fariimo kala duwan ay u direen madaxweynaha Soomaaliland oo ugu baaqeen in xuduudda inta degmada Gabiley ay maamusho gobol ahaanteedu ay ku joogsato waxa ay meel adag iska taageen xaaladda guud ee Soomaaliland iyo guud ahaan gobolka Salal موضوع هوري waxa weeye Soomaaliland baa Ilaahay naga dhigay oo nahay waxa weeyaan de waa nin iyo ayaankii ninba meel baa Ilaahay dejay hawsheedu way badan tahay annaga is ictiraafsanay adduunyadu nama ictiraafsana laakiin annaga is ictiraafsan madaxweynuhu maalin dhaweey waa hadlo degmooyin uu dalacsiiyay iyo kuwa maaragtay si ahay uu ka dhigay maaragtay bi ka dhigay gobollo oo maaragtay waliba baarlamaan waan isoo gudbiyaa hawsha dhameeya leeyahay waxa soo dhanba waan maqlanay gobol Salal la yiraahdaa jira gobolkaasi taariikh aan gobol lahayn buu leeyahay مسكيد قبلتين لا يرابا كيالا هذا يدعو قرانا يانا دويا ذا بين العكا قادن لها يعني إسلام كه وحويان هالكذي لما جارسين إيشادن دويا قبل وكاد الله يرسل قبل ما كم حمينه قبل وانا قول الله دول كوا دول كيسيون وحويان مضوهم بان لنا عذر هقلينه هدركني dhulku waa dhulkiisu gabilayna dadka iyaga degan annaga degan waan ogolahay inuu saylac ku daro siyaanadu waxa ugu qaalisan weey meel aan gobolka Salal lahayno miskid qiblateen ku yaala ma jiro asxaab baa ku aasan biibay hayda miyaad maaragtaa ka dhigtideen miyaad ka dhigtid halka bayladaasi way taalaa waxaad moodaa ninay tahay inay u weey tahay halka intaan baan ku dhaafi waxa kale oo leeyahay waxa kale oo ka hadlay mowduucan ka hadlaya waxa weey waanigi ku bilaabay laba calan baan u dhaxaynaa anagu gobolka Awdal baan hayo Salal arrimo badan baa jira qaar baa ira arrin baan ku haynaa Djibouti waxaan kaga hadlanaa arrimaha Soomaaliya gobolka Awdal baan kaga hadlanaa nama matalaan dawlad baad joogtaan xuquuqdiinii baan ognahay waxaad ka tihiin ka hadlataa xuquuqdaad ku leedihiin dadku waa dad Soomaaliyeed waa la isafkartaaye xuquuqdaad ku leedihiin inaad sheegataan la cabsootaan ka hadla halkaan anagu joogno ma matashaan been ha u sheegina xamar kuwan u baan hadii xamar lagu noqdana israacana anagu hadii la kala joogana Ilaahay kuwan buu iskaayo baday juqraafigan saamaxayba halkan baa Ilaahay na dhigay halka anagu intaan ka bood kama dulboodanadii waasa Soomaali waa laga yaabaa in maruun Ilaahay isku soo celiyo waan israacana anagu halkan baan nahay calankeenu hadduu caarcaar leeyahay iyo hadduu bulu halkan u baa Ilaahay aan nahay arrinka Djibouti aad kaga sheekaynayso anaguma matashan arrinka faraha kala baxa ta kale
annagu cid kale aflagaada noo geyn mayso nimanka gadabursiga sheegtay halkaa joogaan ka hadlanaa qaar baa xamar ku mormayey oo dawladda halkaa joogtaaba la yaabto war idinkoon waxba hayn baad saysataane waa maxay la yidhi kuwa kalena xaggan bay ka bilaabeen waarnama matashaan dadka beenaha u sheegina waxa weeyaan annaga iyo wixii kale ilaahay dhigay halkan arrinkeeda halkanunbuu ka kaca dadkanunbuu ka go'aa dadkaasuu ka go'aa meesha hadalkoogu badanya waa xeebaha waa taadarkaseen shirkayagii ilaahay annaguna dhigay kii kale nala joogaad hawlinaga dhaxaysaa waar nintiisii ka cabsoonaya iyo dantiisii waxa weeyaan alla kaftamo nimankaa reabtigaan isku nahaye xag aana ka yar baqaya nama matalo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laakiin waxa yar fiican oo gadabursa deegoon abtiyaladeed waxa yar fiican shay baa lagu ladhaadee haddaa ilmahaagaan mid gaaraba wax la siino inaad odhanayno aduuni kaba gasho ka kana aagnaade qofku kolkuu dee mas-uul yahay madaxweyne dee inaad xataa midun ku yar ladho inaad gobolka saylac ku ladha ummaddaaba ku qabowdadii inaad ku ladho ummaddaa ku qabowdo ummadda xataa kugu jeclaad laakiin hadduu qofku aniga uun wax walba idhaa dee horta waayeen mushkilada taasina taa odayaashaan la qabaayo in maaragtay ta kale labaadna tii jabuutina odayaasha hore uga hadlo taanu kulma noqon maayo tan maaragtay had iyo jeer laydhaa gabiley baddeedii laydhaa kolla somalilan xuduuddii ingiriiskaa la hadal qaadaa oo waxaa laydhaa somalilan halkii ingiriisku noogu joogay bay ku joogi hadda gobolladana da ingiriiskii baa xadeeyey hadday soomaaliya xadka doonto ingiriiska ee soomaaliya ay ku lahayd soomaaliya ay ku lahayd ay kula lahaydee dee tanna la xeer umay noqoni halkan dila lafteeda nabadiid buu habaa la yidhi berigaa waa la soo raray maad garanayn waxbaa la rari dee haddii laakiin sidii maaragtay ingiriisi dhigay lagu joogo ummadduna raalli bay ku ahaan dadkuna walaalay ku ahaan dawladdana saasaa lagu wada yeelani oo dee awalba waxa laga cabanayay waxba lama wada lehee dee imminkaabay ka sii daran tahay haddii alla idhaa imminka ayaabay ka sii daran tahay marka waxa weeye madaxweynaha waxaan leeyahay dee haraatida ka dah ayaanu misla somalilan haraatida yani dee intan haraatiduna ay wax yeelin intii waxay wax yeeshay maaragtay shishee barige wartan galbeedkana ayaanay wax yeelin in calaamada laysa sulsuloo somalilan baan helay dadkana la laaglaagaa socon mayso dadku damiir bay leeyihiin qodobkaa iminka suldaanku ka hadlayey ee jabuuti sida uga hadlaan la qabnaa nama matashaan baan leenahay kuwa nama matashaan naguma matashaan gobolka naguma matashaan degmooyinka naguma matashaan soomaaliya naguma matashaan somalilan meel baan naguma matashaan isku dalba ma nihinba waxa weeyaan taa intaa baan ku leenahay ta kale waxa weeye madaxweynaha somalilan habeenkii dhoweed waxaanu ka dhegaysanaynay kii oo hadlayo ansixinaya gobolka gebili ha ansixiyo cigaal baa yidhaa layidhi berigii waar gobol isiiya aan dadkii degmada berbera aan maaragtay ku xasiliyo dee waxaa lagu yidhi golihii wasiiradu oo rag baa noolaadda xilligaaye waxaan maanta nooli ma ahayn rag wasiiroo madaxweynaha magacaabay la hadli kara yaa noolaa maalintaayoo jiray oo manaa wuxuu ku yidhi madaxweyne aan kuwa ansixinno gobolkee berbera intay degmada ku xukumaysay iyayna dhaafin ma ballan qaadaysaa intaa haa buu yidhi waan ballan qaadayaa aa loo oggolaaday adiguse adiga yidhi wasiirradiiyo waxay oggol yihiin baarlamaanku ha ansixiyo baddii iyo xeebteedii iyo maxaygeedii dee gebile xeeb ma lehe istabtii caadday qabsatay ku xidhan tahay meel ka hoosaysay tagtaa istabtaana ma dhaafi doonto dee adiga abii saaxiibbadee xadka kaleba ka kordhi xaggaa sare ee etoobiya xigta uga kordhi dee xadka haddaad xad la doonayso ballaadhan intii degmada ay ku xukumaysay ha ku xukuntaanku leenahay madaxweyne haddaad inaad dal kale ay sii qabsatay aad doonayso ummadda fidma dambe ha horkicin ummadda fidma dambe tii horaa laga bixi laayahay tu kale ha horkicin baan ku leenahay madaxweyne hadalkaasi haku kale dhegayso waa wax dhaba weeyo xaqiiqa taana intaa baan leenahay insha allahu tacaalaa
waxaa kaluu madaxweynuhu maalinta dhaweeyday may ku hadlay inuu Soomaaliland aan tuugsanayn oo baryootamayn inuu doonayo ninkii beer yar samaystaba sawka naga biinaya ninkii god yar maxamed qodobta yiraahdo sawka ka celinaya maxay Soomaalidu maxay dadku kaga baxayaan baahida waliba wuxuu ku daray ciidankii waa sharci uu imanaya waa la fulinayaa taasoo ay dhamaanaysaa waxa wallaahi Soomaaliya maalintii ciidamada Itoobiya soo galeen bay al-shabaab ku bilaabantay dhalinyarta Soomaaliland bilaa shaqadii hadaad keenta ciidamo Itoobiyana al-shabaab Soomaaliland bay al-shabaab qabsan baan taana ku leenahay Soomaaliland ha u horkicin inay sida xamar noqoto ha u horkicin hadaad madaxweyne ka tahay hadaad balaayo loo soo diray tahayna de kuwad waxaad ka heshaan leedahay kullay hadalkaygu waa intaa madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye degmada Boon iyo degmada Sayid waxay isku jiraan 340 kilomitir baa hadda inta leeyahay isku jiraan waa Boon oo u sokaysa gobolka Sallal u sokaysa koonfur ugu soo xigta iyo Sayid waa 340 kilomitir isku jiraan waa uu qalmaa gobol waa gobol taariikhi ah waa gobol ay ku yaalaan sida uu sheegay Suudaanku mashaayidka qiblatinka ee caalamka oo dhan maanta hadii loo soo bandhigo dad wadamada muslimka oo dhan ay taageer lahaayeen waa gobol dekadii ugu horeysay Soomaaliya laga dhiso ay ku taalo waa gobol xeebta inta leeg haysta waa gobol bariga inta leeg haysta waa gobol afarta degmada ballaaran haysta degmada Alboon degmada Galbeedka degmada Xariir degmada Sayid iyo afar goobood afar tuulo kale oo degmo u dhig qalmi karo maanta noqon kara Cabdulqaadir ma kamida waxa kamida Geerisa kamida waxa kamida Jiri waxa kamida Fiqaadan waxa kamida waxa weyn waa gobol ballaaran waxaan leeyahay madaxweynaha haddii aad doonayso dalku inuu dhismo goboladuna ay bataan lambar 1 ka dhig Sayid gobolka Sallal ka dhig waa haddii aad daacad tahay weeyo dalka iyo dadku ku sameeyeen way 6 gobol buu magacaabay muxuu u lahaa sida Soomaaliland meel walba biyo dhigta buu lahaayo wax yaani eeg xaquuqdooda ha helaan buu lahaa nin madaxweyne oo gobolkii halkii uu ku dhashay yiraahdo kani baan imika ansixiyay oo Gabiley baan gobol sii baarlamaankana ku amra ansixiya waa arin uguba taayo haddii gobol la ansixinayo oo la bixinayo saylaco 500 iyo dhowr iyo 80 sanadood jirta taariikhdeedii wixii laga waramay inuu wax ka dhiga bay ahayd oo wax yiraahdo wax weeye waa geel ninkii lahaa maalayuun bay aniga yeeleeg tahay musabbix sidoo wax waday geel ninkii awlaha maalayo tag samaroon iyo kuma kala badinaysa haba noqoto cid meel waliba xad bay leedahay xuduud bay leedahay musabbixi kolku leeyahay tukarraq waxaadka ingiriisku igu jooga tanina ha leeyahay waxa halka bay ka dhaadhacday oo halka bay Gabiley bad ka heshaa kolku leeyahay warniyo dadka isku dilin maskaxba waxba la isticmaalaa siyaasiyiintu noocan ma ahayn anu wali ma soo marin ba inta baan jooga 7 jir baan ahay siyaasi nooca yaano u dhaqmo geelaygan maalay walaalkayna waxbaan u fidini saantaan u kordhin yiraahda kow muusan ku arkaya muusan dadka ka daa haddii had wax samaynaysa sida daayirayaal cadaalad ka shaqee intii uu magacaabayba gobol ka dhigdeen ha gobol ka dhig oo dejide dadka kolka cidna hadalka iman mayso laakiin halka aqalkeen ka soo baxan saanta u kordhiyayo ma qabato madaxweyne dib uga noqo hawshaas waana warkeedana waa laga sugi ta kale ee Jabuuti waa la dhameeyay hadalkaas aqalkiyo salaadiinta yiri waxaan leenahay hadda tiri Gabiley ha laga dhiga gobol waan hal ansixiyo waan ku raacsanahay laakiin waxaad raacisaa wehelu yeel waxaad wehelu yeel wehelku ha noqdo inaad Sallal loo qadiimiyana ad ansixisana ku darood golaha wakiilada iyo komisiyadaba mariso
waxaa kaloo kuu sheegaynaa degmooyinka kuwa dhiida ah waa inaad sii ka dhigtaa sida garbadadar oo kale waa inaad sii ka dhigtaa oo siida iyadana aad u soo dallacsiisaa sida qaar kaleba oo ay iyadu ka awood badan tahayba siida loogu soo dallacsiiyey iyo calixaydh meelaha boon yacni mid walba derajadeeda kor uga qaad axmed diriic iltire wararka warbaahinta SBC boorama